inaynu iska dayno dhiigga muslimkee la daadinayo ama qabaa'ilku ha daadiyaan ama xukuumadaha iyo dowladuhu ha daadiyaan dhiiggaasoo runtii qolo waliba ka damqanayso kuwa daadinaya laftigooda dagaalka ku jiraa mid waliba uu leeyahay waan ka xumahay waa run uu garanaya qofka muslimkee la dilay walaalkii inay dembi tahay uu garanaya rabadaanna sii daranta shucuubta laftigoodii baa ka damqanaya dadka dhimanayaana waa dad ehela oo jaara oo diin iyo iimaanba ku walaala marka taana baaqaynu diraynaa waxa weeye dagaal walba waa laga heshiiyaa oo weligii ma socdo dagaalka had iyo jeer u dhaxeeya dadka jaarka ana natiijo lagama gaadho lagumana kala guulaysto waayo qolana meeshii kama guurayso wuxuuna ku xumaada uun xidhiirkaa ku xumaada cadaawad baa ku timaada sidaa daraaddeed maanta ka hadli mayno dhiigga qofka muslimka ah iyo xaaraantinimadiisa waa wax la wada ogyahay oo dhinac walba haddaad weydiisay isagaaba kuu sheegayaba waa laysoo doontumu mid waliba odhanaya laakiin waa sax qofka muslimkaa in la dilaa waa xaaraan qof waliba uu ka odhanaya taa badin mayno laakiin markaynu ka hadlaynaa waxa weeye in la isu taago sidii loo soo afjari lahaa oo maamulada iyo dowladaha hawshaa u taagan dagaalkaa siyaasigaa ay wada xidhiidhaan oo ay gartaan inaan natiijo laga gaadhayn qolo waliba way damqanaysaa sidaa daraaddeed laga wada hadlo sulux la isu taago dadka kale ee ummadda islaamkana iyo cidda ka madax banaaneen iyaguna isu taagaan inay dhexdhexaadin ka galaan fattaqu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay baa wuxuu leeyahay ilaahay ka cabsada oo arrimaha dhexdiina dhammeeya maray asxaabtu bedel sira khilaafeen bay aayaddaas soo degtay waana caam ilaahay ka cabsada alla ka cabsi baa dadka joojin karoo berigu noqon kara oo dhexdiina hagaajiya buu lahay oo waxay isku khilaafteen dhammeeya ilaahay mar walba wuxuu ku celceliyaa shaygaa suluxa ah iyo dadka quluubtooda in la isu soo celiyo way daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma dadka walaalihiina dagaalamaya dhexdooda ha la wanaajiyo waxaad arkaysaa shucuubtu ama dagaalku inaanu weli shacabka gaadhin baad arkaysa dhinacyada kala duwan waayo maalinta dagaalku socdo ayuunbay baabuurtu istaagaya xaggaana way ka imanayaan xaggana way ka imanayaan baabuurtu way iska bilaabmayaan oo waddadii bay iska marayaan marka weli dagaalku shacabkii ma gaadhin ee dagaalkii siyaasadiibuu ku kooban yahay marka waxaynu ku waaninaynaa walaalaheenna xukuumadaha iyo dowladaha iyo cid kasta oo qalin iyo qaraar leh inay arrintaas soo afjaraan ilaahayna ay kaga cabsadaan wax walbana taariikh baa qoraya oo qormaysa ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedabe taa waynu ku waaninaynaa haddii taa la qaadan waayona kollayba waxaa iman doonaa in dee gaaladiina wada xukumi jirta intay soo dhex galaan ay dulbaha inoogu dhuftaan inay idhahdaan ku joojiya halkaasoo amarkooda qaadataan marka intaana taasi dhicin ka horba inaynu inagu ismaqallo aynu dhammaysano ayaa aan ku talin lahaa iyadoo aynu ogsoonnahay kollayba midaama dhagamala haddii malag dhawaaqayaba le waxbaa ilaahay uu qadarayo mar walba ilaa inta ilaahay ugu talagalay jeer ay dhintaan waxaana joogsan maayaan laakiin doorkaynu inagu qaadanaynaa waxa weeye inaynaan ku farxin oo aynu ka xunnahay oo aynu ka naxsannahay oo aynu joojintiisa iyo kubaaqidiisa iyo soo afjaridda dagaalkaana aynu runtii u taagannahay jazaakum allahu khayran allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة